رمضان مبارك لجميع المسلمين، وخاصة مجتمعنا الصومالي. السلام عليكم أصحابتك وحيران شل حرفات كسور هذا مقال عصب رمضان مبارك. halkan maanta waxaan ku falanqayn doonaa maadaama bil cusub aanu galnay bishii saddexaad ay bilatay oo ay maanta afartahay waxyaalaha iyo dhaqaaqyada suuqa cryptocurrency sideenii hore aan usoo sheegnay markasta waxaynu falanqayn doonaa bil kasta suuqu halka uu marayo. marka hadda waxaad arkaysaan maanta in suuqu aad u soo kacay oo dhaqaaq fiican sameeyey, laakiin waxaynu falanqayn doonaa inagu bitcoin oo ah hooyada suuqa. xaggan waxaad arkaysaan oo iigu diyaarsan waa bitcoin. marka waxaan joogaa bille ayaan hadda joogaa saa arkaysaan. maxaan anigu ka filayaa suuqa cryptocurrency bishan iyo halkii ayaan rabaa inuu gaadho musii daadan doonaa ma korukaca buu samayn doontaa bitcoin maadaama aan ka qiyaas qaadano oo ay tahay hooyada suuqa cryptocurrency. sidoo kale suuqa haddaan eegno fear gridkiisu waa 19 ayuu sheegayaa, extreme fear ayuu ku jiraa haddii aan kusii dhufto. saad arkaysaan markaa hadda weli hoos dhac ayuu sheegayaa oo cabsida weli way xoogan tahay saa arkaysaan. marka haddaba haddii aan ku soconno falanqaynteena inagu bil walba waxaan falanqayn doonaa suuqa BTC waxa iska bedela imbalansyada suuqa iyo halka loo socdo. anigu si aan usoo falanqeeyay wasan haddana waan kuugu celin doonaa, laakiin bal aan falanqaynteeda ku celiyo. falanqayntayda aniga suuqa waxaan ku wadaa inuu gaadho bilaha soo socda ama sanadkan 2026 inuu suuqani gaadho oo hoos dhac sameeyo ilaa 49,000 ay gaadho bitcoin. meelaha kale dadka qaar waxa ay sheegayaan ilaa inay gaari doonto dhowr iyo 30 ilaa 35 ay gaari karto ayay dadka qaar sheegayaan, laakiin aniga hadda waxaan ku wadaa bilaha soo socda inuu gaadho suuqu 49 ay gaadho bitcoin. waxoogaa waan xabeebsanahay. marka bitcoin imika waxa ay samaysay bishan dhaqaaqaasi halkii ayuu ku istaagi doonaa oo ay gaari doontaa. aragti ahaan bitcoin waxay gaari doontaa 76 ay marka ay taabato way soo daadan doontaa, laakiin haddii ay liquidity-gan ay jabiso haygan u sareeya, haddii ay jabiso halkaas waxaa ka dhici doonaa inuu suuqu sii socon karo ilaa uu halka gaarayo. halkaasina waa 84. marka bishan anigu hadda waxaan ku wadaa ilaa 85 ma gaari karto, laakiin 76,000 way gaari doontaa insha Allah. ka haddii ay gaadho 76 san filayo 76 marka ay taabato way soo daadan doontaa, waxaanay gaari doontaa daadasho ilaa 49,000. tani hore ayay u dhacday saa arkaysaan. halkan 3 kandhal ayaa ku haysaan kadib markii uu soo taabtay ku guul daraystay inuu imbalance kan taabto. halkan markii uu gaaray kandhalkii 1 2 3 kii afraad markii uu halka taabtay uu soo daatay. imikana sidoo kale halkan waxaad ku haysataa 1 2 3 kandhalkan marka uu halka taabto sida tan oo kale ka dhacday ayuu daadan doonaa insha Allah. marka haddii aan weekliga tago aan weekly ahaan u eego sidoo kale waa halkii aan doonayay ayuun bi gaari doontaa weekligana. marka hadda weekliga waxaa ka dhacay saa arkaysaan hore waxa uga dhacday 3 kandhal. halkan markaad 1 2 3 tiriso halkan waxaa ka dhacday nasasho yar, tanna sidoo kale 1 2 3 nasasho yar ayaa dhacday kadibna dhaqaaq ayuu sameeyey. dhaqaaqaas wuxuu ku eekaan doonaa sida tan oo kale ka dhacday oo kale ka barka marka uu yimaado suuqu uu sii daadan doonaa ilaa 49 ayuu gaari doonaa. aragti ahaan waa aragtidayda, laakiin shalay ayaan su'aal dhalinyarada telegramkayga ku xiran soo weydiiyey cryptocurrency goormaa ku qorshaysan inaad maal gashanayso bisha saddexaad bisha afraad. marka dhalinyaro badan bay la yaabanayd, laakiin aniga waxa ay qorshaysan horta sanadkan wax maalgashi la yiraahdo aniga ay qorshaysan ma jiro, laakiin aadu ilaa bisha afraad bisha shanaad bisha lixaad meelahaas ayaan sileeyahay waxoogaa yar maalgasho. laakiin sanadkan waxa aad loo saadaalinayaa inay bitcoin aad u daadan doonto ilaa ay gaari doonto 35,000 ilaa 49,000. marka sanadkani maba noqon doono sanad maalgashi aad ku bixiso aragtidayda. marka haddii aad maal gashatona waan isla eegi doonaa wuxuu sanadkan 2026 ku dhamaado. marka aan ku sii socdo marka xagga saas ayaa ka dhacday, nasashada yar ayaa ka dhacday tii oo kale uun baana imikana socota. sidoo kale haddaan tagno 4 hourka oo aan inta badan xooga saarno oo ah meesha suuqa laga ogaado. mida kale haddii aad tagto marka suuqu dhaqaaqayo maxaa lagu gartaa markii ay maalgashiga timaado. imika kale sanadkan marka aad halkan eegto dhaqaaqan wuxuu bilaabmay 2019 ayuu dhaqaaqani sameeyey, kadibna wuxuu jabiyey lowgii u sareeyay lowhaygii u sareeyay ayuu jabiyey, kadibna uu soo noqday, kadib saas oo kale ayuu u dhaqaaqay. dhaqaaqii kadib haddana daadasho ayaa ku xigtay. daadashada aan u socnaa waa tan, maadaama hadda aan daadashadii ku jirno inaguna goorma ayaan maal gashan doonaa suuqa. marka iminka suuqa halkaas waxay tahay low xaggana waa lowhay. marka lowhaygaas lagu soo noqdo
low high noocaas oo kale suuqu sameeyo marka low high noocaas oo kale suuqu sameeyo insha Allah market break block marka ay halka ka dhacdo saynta loo jabiyo kadibna lagu soo noqdo ayaad maalgashan kartaa suuqa halkaasna laga maalgashadaa inta badan suuqyada hadda taas ma hayno de waayo sababtoo halkan ayaabaha low high u dambeeyay hadda suuqa waa kan ma jirto meel uu jabiyay oo kale oo suuqani uu socdaa uu jabin karo inkastoo uu jabin karo lowyadan ka sareeya low high sare uu jabin karo laakiin had iyo jeer waxa qurux badan in sanoo kale suuqa kaaga dhacdo kadibna aad halka ka maalgashan karto marka tani waxay ka dhacdaa inta badan weekliga ayaa si fiican oo qurux badan aad uga arki kartaa hadda markii uu suuqu daadashadan ay timid sida arkayso halkan ayaa ah halkii la jabiyay kadib markii la jabiyay suuqu uu jabiyay halkaas wuxuu sameeyay soo arkaysaan market break block markay dhacday kadib uu soo daatay halkaas ay ka maalgashanaysa laakiin waa in suuqu markasta daadasho uu suuqu sameeyo waa inuu qaabkan u socdo waa inuu san u soo jabiyo kadibna low high low saa u socdo kadibna sida u socdo waa in markasta aad eegato low high ga u dambeeyay ee suuqa marka la jabiyo kadib ayaad maalgashan kartaa hadda taas miyaan haynaa maya ma hayno weli waa arkaysaan annaga hadda waxaan ku rajooynahay halkan inuu ka samaysto low high low high saasoo kale suuqu socda imika halkan waxay tahay low high marka saa loo jabiyo hadhow ayaad maalgashan doontaa insha Allah san ugu soo noqdo suuqu ayaa maalgashi la oran karaa oo qofkaasi suuqa maalgashan karaa marka waxaan macnaha ku leeyahay bitcoin waa hooyada suuqa markasta iyada wixii ka dhaca unba kuwa kale ka dhaca salonaan tigi doonaa laakiin hadda aan ku socono waxaan ku soconay 4 hour ayaan ku sii soconay markii u dambeysay maxaa 4 hour ka dhacay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxa 4 hour ka dhacay hadda halkan waa toddobaad xagana waa toddobaad xagana waa toddobaad shan toddobaad ayaa toddobaadkii shanaad ayaa socda haddii aan ku analyze gareeyo suuqan xagan haddii aan iraahdo salsarkii ugu hooseeyay salsar liquidity ugu hooseeyay waa arkaysaan waa salsar liquidity ugu hooseeyay salsar liquidity ugu hooseeyay wana taa kale oo calaamadsato saas oo kale marka waa calaamadsato xaggana waxay noqonaysaa halkan inkastoo ay tahay imbalance ay tahay haddana waa imbalance ka loo socday aan doonayay in la tago laakiin aan weli la tegin mar ayaa la gaaray kadibna waa laga soo daatay haddana imika ayaa la taabtay waana halkii ugu sareysay halkaas marka OB ayaa dhinaynaa maadaama OB tahay xaggan walkii halkan doonayo for hor ahaan in la jabiyo ani for hor ahaan markaan doonayo imika in la jabiyo maadaama intan oo ay bani ay tahay suuq intan oo dhan ay tahay suuq ku jira ranching oo saarkiisa ranching intan oo dhan ay tahay hadda suuqa markii ugu sareysay oo haygii maanta dhaqaaqii ugu horeeyay u qaaday wuxuu gaaray haygii u sareeyay wakaas xagaas ayaa noqonaysa haygii u sareysay haygii u sareeyay maadaama halka yahay haygii waa laga soo daatay kadibna waa lagu noqday kadib waa lagu guuldareystay kadib halkan waxa ka dhacday saarkiisaan market break block ayaa ka dhacay waa la jeebiyay kadib markii la jeebiyay halkan waa market break block u horeeyay ee suuqa ka dhacay shantii toddobaad ee la soo dhaafay maadaama toddobaadkii shanaad hadda lagu jiro kadib kor ayuu u socday kadibna wuxuu ku soo noqday lowgii u hooseeyay ee suuq waa kan lowgii u hooseeyay suuq maadaama uu kan yahay waa calaamadsan halkan waxaa leedahay imbalance kan waa OB ayaa ka dhacday soo arkayso kadib halkanna waxa weeye low high gas oo la jabiyay soo arkayso maadaama la jabiyay halka waxa ka dhacday market break block ayaa ka dhacday arday baa jirta istaraatiijiyadeedan LCT aad u fahantay oo hadda ku shaqaysata dafcadii labaadna insha Allah waan bilaabi doonaa san hore u sheegay si aad suuqa analysis-kiisa iyo technical analysis-kiisa si fiican ugu fahanto marka xagan markii uu jabiyay kadib halkan oo arkaysan intuu jabiyay ayuu ku soo noqday halkan ayaa tareer laga qaadanay haddii aan tago Solana saas oo kale ayaa ka dhacday suuqa markaad BTC analysis-keeda fahanto hadda arkaysan halkii aan joogno waa tan saa arkaysan waa kan dhaqaaqi kadib markuu dhaqaaqay dhaqaaqa waad maalgashan karaysay oo Solana halkan waad ka iibsanaysay 80ka meelahaas waad ka iibsanaysay kadibna marka ay ku jabiso hay'ig u sareeyay 9 kaga baxdo haddana xaggan ayaad ka iibsan karaysay oo 87 oo kale ayaan ka iibsanaysaa kadibna imika waxay ku gaari lahayd 9 wax la 9 ayay ku gaaraysaa marka technical analysis wuxuu ka caawinayaa inaad maalin ahaan uga qadayso suuqa oo aad trader oo gaaban aad ka qaadato fahanto haddii aad u baahan tahay marka inaad si fiican u fahanto oo aad course ka qaadatana waa soo dalban doontaa insha Allah
marka technicalkiina aan kusii socdo marka xagga uu yimid OB-gaas lagu yimid kadib halkaas ayaa trade ka qaadanaysay marka imsa trade ayaa maalmahaas ka baxay 5 toddobaad ee suuq socday waxaa ka baxay horta trade-kii koowaad waa kan suuqa ka baxay halkan ayuu ka baxay kii koowaad qofkii Salona maalintii ay noqonaysay markii noqonayso oo kale lama maalgashado daadashada labaad ayaa la maalgashadaa marka ay imbalance MP market break brogan ku jabiso ayaad maalgashanaysaa kadibna waad ka degaysaa marka ay ku jabiso high u sareeyay kadib marka labaad aad maalgashanaysaana waa markaas ayaa hadana maalgashatay markii saddexda maalgashi ayaad samayn kartaa oo haddii aad technical analysis si fiican u fahansan tahay marka hadda maxaan ka filayaa suuqa weli suuqani laguma kala bixin 4 hour ka saa arkayso oo OB-gii u sareeyay weli lama jabin halkii aan doonay waa halkii halka la doonayay inaan jabiyo suuqa ee lagu kala bixi karo aan oran karo waa la maalgashan karaa suuqa waa marka uu aan jabiyo low high-ga u sareeyay lowgii kan ka sareeyay waa kan saa arkaysaan lowgii ka sareeyay waa kaas low high-gii u sareeyay waa kaas marka halka la jabiyo ayuu suuqan maalgashi ka furan yahay laakiin halkan waxaad ka qaadanaysaa waxa waa trade yar oo scalab yar oo aad maalintii ka qaadan karto maalmaha uu suuqu sano kale yahay waxaan ku fiican tahay tan inaad fahanto technical analysis-ka sidoo kale suuqa waxa arkaysaa daily-gii coinan cusubna way soo baxeen kulay coinanka cusub halkii ayaa laga hore ayaan idin sheegay meelaha coinanka cusub laga raadsado suuqa halkan ayaa inta badan baaraysaa trending-ka suuqa coinska trending-ka impo kale kan waa memo coin kanoo kale waa cusub yahay matra inkastoo hore u soo baxay taariikhdiisa halkan aad kii kartaa xilligu soo baxay oo kale xaggan aad kala soconaysaa waa kan waa jiray 2000 March wuxuu gaaray low sareeyay marka muxuu ku dhisan yahay xaggan oo kale aad ka eegaysaa real world asset-ka kuwa ku dhisan aad bay u fiican yihiin marka kanoo kale waad ka qaraaban lahayd laakiin hadda wuxuu dhaqaaqayba 60% maadaama 60% dhaqaaqay waxay taas ka dhigan tahay waxa ku xigta uu daadasho markastoo coinku dhaqaaqo dee lama maalgashado laakiin marka hore waa inaad la socoto coinanku intaan dhaqaaq samayn muuqaalkan marka YouTube-keenina Gabiser oo ayaa ku yimid muuqaalkan haddii aad daawanayso muuqaalka like saar insha Allah koorasyadeenina sidoo kale waxaan hadda dhamaystirnay kooraskeenii Telegram channel oo aan maanta soo gabagabeeyay haddii aana daawan kooraskaasina soo daawo waxaad ka helaysaa qaybta markaad channelkeena timaado playlistiga marka aad tagto waa kan kooraska dhammaystiran playlistiga ayuu kugu jira halkan ayaa arkaysaa halkaas ayaad ka daawanaysaa sidoo kale horeeyaan casharkan ayaa ugu horeeya laba sana ayaad u daawanaysaa marka aad daawatana Telegram channel hadda kadib lacag ayaad ka samayn doontaa marka mar rabo muuqaalku inuu dheeraado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu